سليمانتا متبادا حريراي وانا يا مدعاوة من مريض خوضا حالو سفر بملو دهاي ولا فرق ولا قرا ولا عروس ولا قرا حتى لك يا فرق كيما هذا فرق والله وكاميرا والمهيك ugu darsa waa lagu xisaabinaa gabadhan maskiinta maxaa lagu furay u dagweeyay lama dhahayo ninkan baasay balaayada qaba muxuu u furfurayaa gabdhaha ma la dhahayo aniga marka waxaan ka tilgelinaa midaa tirijaad buu cunayo soo furtay kii labaadan halahaasana waa garood kulanti waxaan wanaagsan dabadayaal meel walbo aad dunida ka joogtaan waa anigoo Zahaboy halkan naga daawanaysana waa maqaltay surada muuqaalkana maanta haddaba inta muuqaalku gudagelin daawada haddii ay tahay markii ugu horeysay aad channelkan soo booqato subscribe saar sidoo kalena video like gare si aad u heshin muuqaalada barta mar walba aan soo gelino aad ka xiiso u leh waxaa saacadaha ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday muuqaal iyo sidoo kale sawirro ay soo dhigtay gabadhani lagu magacaabo Amaal Aragsan haddaba gabadhani ayaa muuqaaladeeda waxay ku soo dhigtay kuna sheegayso inay isguursan rabaan mar dhow sayyi hore Shadi Sharaf kaasoo loo yaqaano Cabdifataax Yare haddaba gabadhani ayaa waxay sheegaysaa Cabdifataax Yare inuu jecel kala dhaxeeyay haatanba jecelkoodana uu isku bedeli rabo inay isguursadaan mar dhow haddaba saacadaha ugu dambeeyay ayaa muuqaalkani wuxuu qabsaday inuu ku faafay baraha bulshada khaasatan YouTube iyo TikTok iyo waliba Facebook haddaba social media ayuu muuqaalkani zaid ugu faafay balse arrintani ayaa waxay ku noqotay oo leeyihiin dadka qaar ay u hambalyeynayaan halka dadka qaarna ay leeyihiin arrintani waa khiyaano qaran oo waxay isleeyihiin Cabdifataax Yare uu khiyaamay Shadi Sharaf haddaba waxaa ognahay maalmihii dhaweyto inuu soo baxay khilaaf halkaasoo la sheegayo Shadi Sharaf iyo Cabdifataax inuu soo dhaxmaray khilaaf halka Shadi Sharaf aan ognahay inay safar u aaday wadankaasi Turkiya balse markii ay soo laabatay ayaa waxay beenisay hadaladii ka socotay ayna ku tiri aadi iyo saygeeda Cabdifataax Yare inay isfurin balse arintii ayaa hadda waxay noqotay midba mid ka duwan gabadhani ayaa dhaxda soo gashay ayuu waxay leedahay Cabdifataax Yare aniga waa isjecelnahayn umar dhuna waa isguursan doonaa haddaba arintani haday run noqoto waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa fanaanada loo yaqaano Shadi Sharaf waayo Shadi Sharaf iyo Cabdifataax waxay ahayeen lamaanaha lagu jecel baraha bulshada khaasatan sida zaidka loo daawan jiro ayay ahayn Shadi Sharaf iyo Cabdifataax waxaan ognahay lamaanayaasha ugu fiican social media inay ku jiraan balse gabadhani ayaa muuqaalo soo dhigayso halka ay sheegayso oo video ay ku sheegayso inay isguursan rabaan mar dhow halka dadka qaar ay leeyihiin gabadhani waxay raadinaysaa ambax inay ku soo ambaxdo halka dadka qaarna ay leeyihiin arrintani waa run oo mar dhow ayuu oroskooda soo bixi doonaa balse ilaa hadda waxaa lagu wareersan yahay Shadi Sharaf ilaa haddana arrintan ayadana kama saarin balse arrintani ayay run haddii noqoto waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa lamaanayaasha sidoo kale qoyska Shadi Sharaf ay ku noqonayso murugo weyn haddaba gabadhani ayaa waxay sheegaysaa Cabdifataax Yare inay wada socdeen 8 bilood haatanba jaceylkooda uu sababay inay isguursadaan hambalyadooda ayaa waxa la isdhex marayaa baraha bulshada oo qabsatay halka dadka kalena ay ku xumaadeen inay ku tilmaamay arrintani waa khiyaano qaran ay waxay ku noqonaysaa Shadi Sharaf balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa maxay tahay sababta xilliga keentay inay soo bandhigtay gabadhani muuqaaladan sidoo kalena ay dhahdo Shadi Sharaf ay isguursan doonaan arrintani ayaa ilaa hadda lagu wareersanayay inay dhab tahay iyo inay prank tahay balse dadka qaar ayaa waxa la isla dhaxmarayaa oo la isla dhaxmarayaa baraha bulshada hambalyada ka dhaxayso arrintani ayaa waxay ku noqonaysaa fajac weyn sidoo kale Shadi Sharaf ay ku noqonaysaa balse Shadi Sharaf iyo ayada ilaa hadda ka hadlin sababtana ay run inay tahay iyo inay been tahay balse ma aqaan dadka qaar ay leeyihiin Shadi Sharaf ilaa hadda waxay samayso ayay ka siladahay ayay isleeyihiin dabadaawada waxay warar soo kordho waxa kala socon doontiin muuqaalada dambe aan soo gelin doono insha Allah bartan YouTube-ka haddaba haddii tahay markii ugu horeysa aad ka soo booqato subscribe saar sidoo kale video like gare oo na sii jeegare si aad u heshid muuqaalada bartan mar walba oo aan soo gelin oo aad xiiso u leh si ay ku dhaafin waana Zahaboy idinka tagayo inta ku kulmi doona muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo